بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan horta marka ugu horeysa halkan salaan aad u qiimo badan aan u marinayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gaar ahaan walaalaha shacabka Puntland iyo maamulka Puntland labadaba. Kilibkeegan waxaa la yiraahdaa isxilqaan. Wuu ka duwan yahay kilibyada baraha meediyada la isku mariyo oo la isku maago, qabyaalada looga hadlo, siyaasadda looga hadlo wuu ka duwan yahay. Ma ahi siyaasi, ma ahi xisbi kama tirsani, maamul dowladeed مسؤول جاءوا هاي ماهي نبضوني السودان ماهي مواد الصومالية أنا قلبي يقولون كويتا قبيلة النفاق وعن روا مركا واسحل قامايا إتكسين أفرنتاي ودمير كدو وناكسنتا إن اسحل قامان كم حرنا مستواها بالشدة ماشي وجر عقلي يستكو حرنت الله سبحانه وتعالى وقرآن كريم كسورة ياسين ونوغوش شاقين إن اسحل قام oo qoon ay ambiyadii ka quusteen rususha alla u diray ka quusteen isaga u dawa maray oo wuxuu sheegay oo isku dayay inuu wax sheego. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraanka kariimka nagu sheegay wajaa min aqsal madinati rajulan yas'a qala ya qawmi ittabi'u al-mursalin uli qoomkii ambiyadii ka quusteen ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri nin magaalada meesha ugu dambeysay ka yimid isagoo degdegay intuu qoomkiis u yimid ayuu wuxuu leeyahay war qoomkeygiyo rususha hala raaco war ambiyada hala raaco ayuu leeyahay. anigana waxaan leeyahay war walaalayaal ummadda Soomaaliyeed hala raaco, ummadda hala raaco oo waxa ogaataan qaranku wuxuu ka yimid gobollo isku tagay ayaa qarankii ah, qayb qarankii ka mid ahaatiin waxa mucaaradaan danta guud ha ahaato, laakiin iska dhaafa waxaan danta gaarad mar walba waxa mucaaradaysan دولد والبانا أد معارضيسان تي الشيخ شريفة معارضيسين تي حد الشيخ محمود معارضيسين تنفرماج حتى معارضيسين مدحوين الدنيا مالين تقول الرئيسي وكرسي قيمت إلا يا حد يمسجر وكسو عليي شير مقالة مقدش الوقا بناي تيجي هو شركة مقالة مقدش الوقا بنايو ما فرماجو أروسها العقل وارورنا سو واحد انت تقول لوغا هلا يما سو انت تقول قيب كما ما دايم مسؤول سومالي دوية maamulkii baarlamaanka Puntland meesha mas'uuliyiin Soomaaliyeed ahayn waxay ugu fikirayaan sida Amisom oo kale. Amisom wadanka waxay iska dhigaan inay nala ilaalinayaan ammaanka iyo nabadgelyada, laakiin maslaxadooda u joogan waxbay ku qaataan. adinku waad ka duwantiin muwaadiniin Soomaaliyeed atiin xilaa in ka saaran wadanka xaaladdu maanta wadanku marayo in hore loo socdo xilaa in ka saar meel wax ku qaadato meel aan wax ku qaadataan ka dhigateen. waxaa la rabaa inaad effort iyo energy kala gelisaan iyo dadaalo kale si meesha la joogo hore loogu socon lahaa. farmaajo shalay birin oo tagay si wadanka meesha joogo hore laga dhaqaajin lahaa. waraan isu imaano aan wada hadalno waraan wax wanaajino maba tagay hadaa tiraad balka war waxaan noqonaysa inuu halkaas taagnaada rabto in wadanka hore u socdo meelta shalay waxa la mucaaraday dawladda Puntland iyo dawladda federaalka maxay wada hadleen waa cajiib. Somaliland wada hadalkeeda farmaajo ma bilaabin, farmaajo ka hor socotay ilaa iyo Turkiga isla tagay howl qabyaha ay ahayd oo la wada wixii ka soo baxaba yani ina wax iska mucaaradaan magi hadda gobolka Banaadir laga hadlay waa arkaysan wax dhacay waa mucaaradad aan indhay dhiga lahayn war walaalayaal waxaan iska dhaaf oo wadanka xilaa idinka saaran waajibka idinka saaran guta oo sideedaba xaqa iyo waajibka horeeya ruuxu markuu waajibkiisa guto ayuu xaqiisa helaa. maxaa waajibo gudateen maxaa ku taageerteen dawladnimada Soomaaliya maxaa idinka galo ku taageerteen waxaan baa ku qaadataan sida Amisom oo kale maxaa idinka galo ku taageerteen. midda labaad muqdisho waa caasimadii wadanka waa aabihii wadanka garowe waa gobol waa wiil haddaad reer u timaado aad u timaado reerkii dani ka soo gashay wiil aabihiisa wada jooga oo wiilkii oo aabihii ka weyn yahay maxay noqonaysaa waa dhaqan meel laga yaqaan adduunkiisa jira diin iyo dhaqan adduunka istaa ma jiro kuwa sanamta caabudo wax diina lahayn wiil aabis ka weyn ma yaqaanin waxa raadinaysiin waa wiil aabis ka weyn waxa raadinaysiin waa in muqdisho lagu xukumo garowe mucaaradin intaas ku salaysan wax kale macna la weyn maaha waxaa baarbaartaan mar kasto
buug meel yaalla waxaa idiin sheegayaa saxaabiga jiliilka Mucaad bin Jabal markii loo diray Yemen waxaa la weydiiyey maxaa ku xukumaysaa markaa u tagto Yemen wuxuu yidhi kitaabka Ilaahay waxaa la haddaa ka weyso balka hor wuxuu yidhi sunnada nebiga haddaad ka weyso balka hor waa sunnada nebiga iyo kitaabka qur-aanka waxa la haddaad ka weyso wuxuu yidhi khulafada waxaan uga dayday haddii aad ka weyso balka waran ijtihaad binafsi caqliga isticmaala war buuggaan qoranoo meesha yaalla xalkoo dhan kuma yaallo maalintii la qoraayo waxbaa laisku keenayo qaran tacbaane oo garabka la haayo oo aan soco karin iyo midnimo la tuugtuugayaa lagu hayaa meesha farmaajo waddanka iskama laha khayran iskama laha waxaa laga yaabaa aniga inaan muxaafid u ahayn hadda bilishe muxaafid uma ihi laakiin siyaalaha qaar uma mucaaradee see hore loogu soco karaa bisaan ku fikira walaalayaal iska dhaafa waxaas oo waxaa samaysaan tii timaadaba ha isku taagine bal inaad maalin wax ku taageertaan isku daya bal xisaabtama gadaal u xisaaba mideed wax ku taageerteen hal sheekh shariif kasoo bilaaw xashi maxamuud ku dar midaan ku dar adinku baa leedin aaminsanayay waxbaa leedinku laaluushayay meel aad wax ku cuntaan oo wax ku qaadataan ay idintaa dowladnimadii Soomaaliyeed iyo qarankii hore loo wadi lahaa adinka waajib in kama saarna miya inaad hore u riixdaan wax ku dartaan hore yani xilin kama saarna miya ninka diidaay aan wada hadalna aan isu imaana ninka diidaa anigu tagi maal muxuu rabaa in halkaas la taagnaado rab wadamada cadawga ah ee raba Soomaaliya inay soo hor u soconin ayaa waxa soo kala jecel inuu soo hor u socon laakiin aniga iyo adiguba haddaan farmaajo dhaliilayno farmaajo wadankii maaha waa shakhsi dantii wadanka waa in la fiiriyaa waxaan iska dhaafay ilma walaalayaal oo waxa sameynaysan bal danta guud harmar ku fikira oo maamulka Puntland oo mentality-ga noocaas oo kala bedela oo arrintan waxay soo socotay haddii taariikhda dib loo akhriyo dib meel fog haddaan geeyo on dib u akhriyo dowladda aadan hadda ka soo bilow waxaan wax ka darnaa tagnay ilaa muxuu ahay shiribka ahay risaaq ka qaadi Rashiid u dhib inta kalma rootiya waxay ku timid sad bursiyo waxay ku timid xuquuq dad kale oo la ilaalin waxay ku timid damac kaliya wax la rab madaxweyne reer Puntland ay ogolaadeen waxa ka jira xogaa aadan cad Allah yarxam isagana sababta ku ogolaadeen wala yaqaan gabadhina Abshir Hamaan oo qabay Abshir Hamaan booliisku ugu sareeyay ayaga ra'iisul wasaare rabaan in noqdaan rabeen baarlamaanka ayaga ugu badnaay nima ayagu sameysteen oo dadka farabadan aqligu saxaab wax gacan ku rimaysay isaga arkayeen laakiin dan lagama siilayn wixii markii waxa la rabaa xaaladii waa isbedeshay maanta wadankii ayaa samata bixis u baahan maanta gorgortin ma joogto samata bixisaan joognaa in see loo samata bixiyaa wadankaana la jooga in walba xil iska saaro meesha maanta la joogo si hore looga socon lahaa guunimada lagu jiro si looga bixi lahaa laakiin iyadoo xaaladdu halkaas marayso gorgortan aan meeshaba ku jirin mucaarad aan meeshaba ku jirin farfar ku taag meesha ku jirin cid ka soo socoleed lugaha qabataan war adinka yaa leedin ersan war adinka yaan leedin ersan wadankan hadduu hor u soconayo adinka yoodan ersan haddeedan waxba ku taraynin dhibka ka dhaafa adduunka waxa ugu daran oo ugu xaasidsan kan aan waxna ku siinayn waxayna noqotana ogolayn waxna kugu tari maayo waxba ku siimaa waxayna noqotana ma ogolo kan ugu xun waa ha noqonina waxa ugu dadka kan ugu liita waxtarka kan ugu liita waxay tahay qofka haddaadan waxba ku taraynin inaad ka dhaafto dhibkaada waa mid ugu hooseysa yani isteexada kan ugu hooseysa waxay tahay haddaadan waxba u tarayn qofka inaad ka dhaafto dhibkaada inaad ka dhaafto waa muhiim ma arkin weli hal maamul oo aad wax ka saxaysaan hal maamul ood kabaysaan soo hor ugu socdo kanaan rabnaa kanaan lama siin kanaa ka dhiman kan looma dhama waxa loo dhan yahay weligeed ma imaanayso laakiin waxaa la rabaa in xoogaa hore un loo socdo wixii barnaamijka hore loo riixo ilaahay ku dhaarshi waxaan idin leeyahay kilibkeen waa isxilqaan war ummadda ha la raaco